الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقيد قريشات أبو طالب أجمد وكيري أبو طالب أبو لحظة يدبات كتاي شرف يمقانا واتكولاد حي وحانو كويدي سنين نقا عشتي ويلك ولا الكعد علي نقا ما آذن علين والله بانو نأسي أتكيسان كرين إن آباياش عايا وعقلك يغفر فمين ilaahiyada yadiina ceebeeyey waa inaad naga ceshataa ama aan inaga iyo adigu isu baxnaa ilaa labada geesood miday jabto abu daalib waa la weynaatay hanjabaadaas qallafsan markaasuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u cidiray oo ku yidhi maandhow tolkaa waa i yimaadeen sidaa iyo sidaa bayna igu yidhaahdeen ee naftayda iyo naftaadaba noo badbaadi oo ha nagu kalifin waxaanan tabaruhayn markaas rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu mooday in adeerkii hakranayo oo mar dambe u hiilinayn oo yidhi adeer wallaahi haddii ay qoraxdu midigta iga saaraan dayaxana bidixda si aan arrintaan uga tago wallaahi baanan ka harayn jeer aan ku dhinto ama alle igu guuleeyo dabadeedna inta oohin la dhacay uu iska kacay markii uu dhaqaaqay buu abu daalib u yeeray markii uu yimidna wuxuu ku yidhi maandhow orod oo waxaa rabtid sheeg wallaahi baanan weligay cidna ku gacan gelinayn wuxuu yidhi wallaahi baan colkooda ku soo gaari karin jeer ay ciidda ay geliyaan ee arrinkaaga shaaca ka qaad cidna ku loodin mayso bishaarayso oo taas ku ilqabooso markii ay qurayshi aragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo hawshiisii iska wata waxay garteen in abu daalib diiday inuu rasuulka hagrado oo ku talagalay inay kala tagaan oo coloobaan markaas bay waxay u kaxaysteen camaara bin waliid bin ulmaqiira oo ku yidhaahdeen abu daalibow inankan waa inanka u sita dhalinyarada quraysheed oo u qurux badan ee qaado caqligiisa iyo hiilkiisaba adigabaa iska leh ee wiilkaaga ka dhigo oo noo soo gacan geli wiilka walaalkaah ee khilaafay diintaadii iyo diintii aabbayaasha oo midnimadii tolkaa kala dilay oo caqligoodii liiday aan dilno waa nin lagu baxshay wuxuu yidhi wallaahi gorgoro baas baad iila timaadeen ma wiilkiina baad isiinaysaan oo aan idin masruufaa wiilkaygana ma idin siiyaa aadisheene wallaahi waa waxaan weliga dhacayn saamudcin bin cadiya bin nawfal bin cabdimanaaf baa yidhi wallaahi abu daalibow tolkaa garbay kuula yimaadeen waxayna ku dadaaleen inay ku takhallusaan waxaad necab tahay nin wax ka yeelayana kuma arko wuxuu yidhi wallaahi baydan gariila iman waxaase ku tala gashay inaad ihagratid oo qoonka iga hiilisid ee sidii kuu muuqata yeel kutubta taariikhdu ma xadidin taariikhda ay labadaas ergo abu daalib u tageen markiise dhinac walba wax laga eego waxaa muuqata inay ku beegnaayeen sanadkii 6aad ee nebinimada muddada labada erga u dhaxaysay oo wax yar ahayd markii ay qurayshtu ku fashilantay labadii erga ee hore waxay ku laabteen oo sii xoojiyeen falalkoodii wax ciqaabida ahaa isla muddadaasna waxaa ku dhalatay qooqaayadii fikradda inay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hab kale u dilaan fikraddaas iyo cadaadiskii adkaa waxay sababeen inay islaamka sii xoojiyaan oo ay soo islaamaan laba geesi oo geesiyaashii maka u waaweynaa ka mid ahaa waa xamsa bin cabdimudalib iyo cumar bin alkhadaab allaha ka raali noqdeen cadaadisyadaa dhacayay waxaa ka mid ahaa cutba bin abilahab baa maalin rasuulka sala allahu calayhi wasalam u yimid oo yidhi anigu waa ku gaaloobay wanajmi idaa hawaa aayad annajmi ka mid ah iyo ka soo dhowaaday oo isa soo raariciyey waa malakul jibriileh oo isla suuradda annajmi ku yaala dabadeedna rasuulkii sala allahu calayhi wasalam buu dhib u geystay oo qamiiskii ka jeexjeexay wejigana candhuuf uga tufay inkastoo aysan calyadu gaarin markaas baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam habaaray oo yidhi allow ku saliib eeyahaada ka mid ah allena waa ka ajiibay isagoo qolo quraysh ah safar u raacay bay degeen meel aswaaqaa la yidhaahdo oo suuriya ku taalla saalibaax baa ku gaaf wareegay habeenkaas raggii markaas wuu cuteyba yidhi waa habaarkii walaalkay wallaahi oo ay cunayaa sidii maxamed igu habaaray isagoo maka jooga buu ii dilay anigoo suuriya jooga markaasuu libaaxii ku soo booday oo dadkii kala dhex baxay oo inta madaxa ku dhegay gareeyey xadgudubyadoodii waxaa ka mid ahaa
عقبة بن معايد رسولك صلى الله عليه وسلم أو سجوسا لقنت عكساري إلى أكسكتي إن يندوه دبدا وصبودان أو قايدو إن دلكي سدمعين وحامو جنايا حديث دير ابن إسحاق وريي وحيري أبو جهل بايري كلنك قريشيدو محمد واديدي وحانا حين وحاada aragtaan oo eebaynta diinteena iyo caayida aabayaasheen iyo liidida caqligeena iyo caayida ilaahiyadeena aniguna waxaan ballan alle ku qaaday inaan dhagixii aan awoodo soo qaato oo markii uu sujuudo madaxa ku baraajiyo markaas ama i gacan geliya idinku ama i difaaca banu cabdimanaafna markaas sidii la noqoto ha yeeleen waxay yiraahdeen wallahi baanan cidna ku gacan gelinayn weligayo sida aadam cadiid ku dhaqaaq markii Abu Jahal waa bariistay buu sidii uu sheegay dhagax soo qaatay oo sii fariistay isagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sugaya rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam sidii hore uu isaga soo hireystay markaas buu salaad u istaagay Quraysh oo dhamina waa soo kalaheen oo naadigoodii bay isugu yimaadeen iyagoo sugaya bal sida Abu Jahal faro markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam sujuuday uu Abu Jahal dhagixii soo qaatay oo la soo aaday markii uu soo dhawaaday uu islaabay isagoo guul daraystay oo midabkiisii doorsoomay argagax dartii oo gacmihiisii dhagixii ku engegay markii dambena waa iska xooray saa waxa uu soo istaagay raggii Quraysheed oo ku yiri war maxaa ku dhacay Abul Hakamow wuxuu ku jawaabay waxaan u soo kacay inaan falo wixii xalay aan sheegay markii aan u soo dhawaadayna waxa sukadiisa iga soo baxay awr aan waligay arag wax madax leeg oo luquntiisa iyo miciyihiisu oo kale oo damca inuu cuno ibnu Isxaaq wuxuu yiri waxa la ii sheegay inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri kaas Jibriil buu ahaa hadii uu ii soo dhawaan lahaana waa ay qaadan lahaa markaas kadibna Abu Jahal wuxuu falay arrin sababtay islaamidii Hamza bin Abd Muttalib oo aan arki doono qaayada Quraysheedna kama ay biin fikradii dilida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku saabsanayd ibnu Isxaaq wuxuu Abdullah ibn Umar ibn Aas ka wariyay inuu yiri waxaan u imid iyagoo ku shirsan qowlada Kacbada markaas bay rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo hadal qaadeen oo yiraahdeen weligayo ma aanan arag waxaan ugu sabirnay sida aanikaan ugu dul qaadanay arrin weyn goor ay sida leeyihiin buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku soo baxay oo soo aaday Kacbada oo inta tiirka Kacbada taabtay buu soo agmaray iyagii isagoo Kacbada ku dawaafaya markaas bay hadallo ku dureen aan ka dareemay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wajigiisa markii uu mar labaad soo marayna sidii oo kale bay u dureen iyana wajiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam waan ka gartay mar saddexaadna bay soo mareen waa dureen saa rasuulku sallallahu alayhi wasallam inta istaagay ayuu ku soo jeestay oo ku yiri kulanka Quraysheedu may maqlaysaan kii nafteedu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay waxaan idin la imid gowrac saa kelmadihiisii baa raggii meel kaga dhacay markaas bay wada hogteen oo goroda laalaadiyeen sidii shimbir dhacaya madaxa ka saaran yahay markaas bay isu wada dabciyeen oo kuwii ugu daraa ay hadalkoodii ugu dabacsanaa ku yiraahdeen oo la wada yiri Abul Qaasimow iska tag wallahi baadan waligaa jaahilnimo falin markii maalintii xigtay la gaarayna iyagoo sidii oo kale u hadal haya buu ku soo baxay markaas bay hal mar ku soo boodeen oo dhinac walba ka hareereeyeen waxaana arkay nin ka mid oo maradiisa ku ceejinaya sa Abu Bakar baa kacay oo kala dhex galay isagoo ilmeynaya oo leh ma nin baad ku dilaysaan inuu yiraahdo rabbigay waa Allah dabadeedna waa isaga tageen ibnu Umar wuxuu yiri taasi waxay ahayd arintii ugu darnayd ee aan arko Quraysh oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku faraya al-Bukhari wuxuu Urwa bin Zubayr ka wariyay inuu yiri Abdullah ibn Amr bin al-Aas baan weydiiyay oo ii sheegay wixii ugu darnaa ee gaalada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku fashay oo yiri goor uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qowlada Kacbada ku tukanayo baa waxa uu yimid Uqba bin al-Mu'ayd markaas buu inta maradiisa luqunta ka suray buu si daran u ceejiyay saa Abu Bakar baa yimid oo inta qarqarhada qabtay ka riixay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo yiri war ma nin baad ku dilaysaan inuu yiraahdo rabbigay waa Allah walaalayaal darsigeena maanta
halka ayuu inoo joogayaa inta aynu darsigan darsi la mid ah isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh